foofay odaygu markuu miirsaday adugu biyo lagu shushubo miirsado kacay xajkiisa dhameystay buu noqday Baghdad buu ku noqday mugu Baghdad ku noqday buu hooyadii dhuunta ku dhuxooyay hadaan run ii sheegin waa la kala baxaya nin qaa'if hooyada sooca ayaa cadeeyay wiilkan aan dhalay Arab way sameertay wiilkan aan dhalay laakiin anigu wuxuu yiri odayga adoonka ay hebelay weynaan waan dhaxlay aabbahay ka dhaxlay baa ku dhalay warka meel saar buu doqdi waxay tii waxba ay diin run baan ku sheegayaa aabbaha oday waayeela oo qad balaqa meel kibar itiyan bu'a waabaan isku dhacnay markaan isku dhacnay buu saddex dalaqad igu furay markuu ii furay ayuu ka qoomay hadana furitaanki inuu isoo cishado damcay maxal buu samaystay odaygan weyn ee adoonka ah ayuu igu maxlalay habeenaan la bariyay kadib waxaan maana wuxuu igu maqan yahay yuduqa aabbaha dib isoo cishaday oo mar labaad ii guursaday saasad ku dhalatay saasad ku idan muxuu noqday waa wiil maxlal ah maxal ku dhashay duqan wiilkiisana nasab buu noqday asaga dhalay si toos ah hawsha waxa kala saaray hal oday reer bani mudlaji ah waxaad marka fahmi kartaa nimankan qoyskan ma aha sayidina Umar qaa'if buu ahaa aad hawsha ugu dheeray aan iskaga tagnee qisada khatar ah fa inta daacaya marka DNA bay barataaye waxa weeye hidasooci reer bani mudlaji DNA waxa ka khatarsanaya DNA wax la fiiriyo nafta kaaga baxo indhaha ku cadaadana ma la faaro ku kala lagu celiyo weeye nin halka soo socdo ma dhigartaa wiilkan ninkaas dhalay soo socda ka hogaamin hayana waa aabihi awoodtaas ma waxa la xamili kartaa ma